haddii aad internetka isticmaashid waxay u badan tahay inaad garanaysid wejigan. Ninkan waxa uu sameeyey waxyaabihii ugu waalida badnaa internetka. Waxaa ka mid ah waxyaalaha waaweyn ee uu sameeyey. Wuxuu galay god isagoo nool laguna aasay, wuxuuna ku jiray 50 saacadood. Wuxuu si firi ah ku bixiyey jasiirad uu lahaa. Wuxuu gurigiisa ku iibiyey $1 oo kaliya. Wuxuu tagay dukaan wuxuuna iibsaday wax walba oo yaalay. Wuxuu u soo bandhigay dad kala duwan inay qaataan $100,000 oo ay isaga tagaan shaqadooda. Wuxuu furay makhaayad macaamiisha markay ka cunteeyaan iyaga lacag la siinayo. Wuxuu ku bixiyey $1 milyan iyo wax ka badanba hal video. Wuxuu ku tiriyey tirada 1 ilaa 100,000 isagoo live ku jira. Magaciisa waxaa la yiraahdaa Mr Beast. Wuxuu sameeyey wax walba uu ku fakaro. Wuxuuna noqday ninka ugu deeqsan internetka ee lacag bixinta. Laakiin 24 jirkan inuu kaamirada horteeda ku sameeyo waxan oo dhan maxaa ku kalifay? Ma views ba mise deeqsinimo? Dadka qaar ayaa isweydiinaya Mr Beast ma wuxuu u sameeyaa deeqsinimadan si uu u helo views badan? Waan ka jawaabi doonaa su'aashaas intaadan go'aansan muuqaalka ila dhamayso. Si aan u ogaano waxa riixaya Mr Beast waa inaan la kulannaa isagoo 13 jir ah lacagtan tirada badan ka hor. That sounds weird. People thought it was crazy. It didn't make sense. It didn't make sense to me either. I was just like, I'm gonna be a YouTuber. Arag, intuu uusan daaha ka qaadin sirta muuqaalada viralka, magaciisa saxda waa Jimmy Donaldson. Waxa uu ahaa wiil 13 jir ah, xaaladda dhalinyaranimo ee caadiga ah isaga jira. Jacaylka uu hayo video samaynta waxay ahayd mid la yaab leh. Waxa uu tijaabiyey soo bandhigista muuqaalo kala duwan sanado ilaa uu ka soo gaaray heerka jaamacadda. Intii uu dhiganayay jaamacadda, maskaxdiisa kama uusan saarin YouTube. kadib 2 isbuuc uu jaamacadda waday uu isaga baxay jaamacaddii ama waa isaga tagay. Markuu 18 sano gaaray waxa uu ka guuray gurigii familkiisa, wuxuuna sanado kale ku sii jiray muuqaal samayntii. Waxa uu isticmaali jiray mikrofoonkii hore oo aan tayo lahayn, wuxuuna ku samayn jiray muuqaaladiisa telefoon. Kadib marar badan uu laabtoonkiisa ka celidoobay, laakiin Jimmy uma uusan joojin waxaas. Wuxuu ka xigay inuu faqiir noqdo, inuu wax kala sameeyo aan ka ahayn muuqaalada YouTube. sanado kadib waxaa ku soo dhacday fikrad aan caadi ahayn oo la yaab leh. Wuxuu soo dhigay video 24 saac isagoo tiranaya 1 ilaa 100,000. wuxuu noqday muuqaal magnet ku xiran yahay oo aan marnaba la dhaafi karin daawashadiisa. Muuqaalkan wuxuu noqday mid qarxay, isla markaasba wuxuu ogaaday sirta dahabka ee ka dambaysa muuqaalada viralka noqda. aad iyo aad ayuu u siyaaday YouTube-kiisa, kana fiicnaaday YouTubers badan. Challenges-kan cajiibka waxa ay soo dabayn kumanaan views ah, kadibna waxay shabaag u dhigteen ganacsatada waaweyn ee xaysiinta u baahan. Mr Beast wuxuu dib ugu maalgelin jiray lacagta uu xaysiiska ka sameeyo fiidiyoyadiisa si uu uga sameeyo lacagtaas iyo mid ka badan. Hadda Mr Beast wuxuu shaqaalaysiiyey 50 qof si uu u soo saaro hal video oo qurux badan, fikradiisuna cajiib tahay. Mr Beast wuxuu ku bixiyaa lacag gaaraysa $4 milyan bishiiba muuqaaladiisa. aan u soo laabano su'aasheena, Mr Beast ma wuxuu u sameeyaa deeqsinimo been ah si uu u helo views badan? Jawaabtu waa haa iyo maya. ها Mr Beast qayb ahaan wuxuu u sameeyaa muuqaaladan wax bixinta ama deeqsinimada ah si uu u helo views badan, sababtoo ah viewska ayaa lacagtan uu bixinayo soo xareynaya. sidoo kale maya, sababtoo ah deeqsinimadan ma ahan mid been ah. maalinkii ugu horeeyay ee uu helo $10,000 oo uu ka helay xaysiiska, waa uu kaydsan karay lacagtaas naftiisa, laakiin isagoon waxba labalabayn ayuu siiyey nin homeless ah oo aan guri haysan. tan ayaa ka dhigaysa inay deeqsinimo ka tahay, taasoo xoojisay Mr Beast isagoo isticmaalaya hantidiisa iyo saameyntiisa. 2019 Mr Beast wuxuu ururiyey lacag gaaraysa 23 milyan si uu ugu beero 20 milyan oo geed. intaa kuma uusan joogsan Mr Beast, sanadkii ku xigay wuxuu hirgeliyey barnaamij cunto ah oo caawinaya kumanaan family oo faqri ah. Mr Beast waa natiijada ka dhalatay dadaal iyo joogteyn sanado badan ah, taasoo ka timid hami iyo qorshe fog oo uu ka lahaa inuu ka farxiyo dadka. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar, muuqaalkana like gare. mahadsanid.